السلام عليكم ورحمة الله وبركاته asxaabtena qaaliga ku soo dhawaada muuqaalkii saddexaad aynu ka samaynayno sida loo dhiso website waxbarasho marka aynagoo isticmaalayna WordPress muuqaalkii koowaad waxaan kusoo degsanay softwareka loo yaqaano local waan ku shubanay computerkeena oo markaa waa ku install garaysanay maanta waxaan rabnaa inaan abuurno websiteka ugu horeeya ee computerkeena ku duubi doono markaa isagoo WordPress ah markii aad soo degsato local kadibna aad ku shubato computerkaaga deetana aad soo furato shaashada ugu horeysa ka hor imaan doonta waatan sida isku ogeyn iyadoo marka shaashadan waxay leedahay dabcan meel nadiif waaye oo amaro fara badan iyo waxyaabaha kuma jiraan dabcan mid walbo ka midna si gooniya loo bartaa insha allah xiisooyin kale ku arki doonaa muhiimadeenu waxay tahay maanta inaan WordPress halkan ku abuurano ku install garaysano computerkeena kadibna marka aan naqshada iyo waxa rabnaa u samaysano idan marka aad rabtid in local aad WordPress ku install garaysid ama aad ku shubato waxaa la isticmaalaa hadaba shaashada ugu horeysa halkan maadaama wax WordPress uusan noogu duubnayn waxayna siinaysaa hal button oo weyn oo halkaa yaala kaas oo inoo saamixi doona marka inaan halkan ku shubano idan marka haddii website kale ay jiraan halkan kuu safnaa ama hore usoo isticmaashayna halkan hoose ay ku qoran tahay add local site meeshaas aad taaban doontaa dabcan hadda waa isku mid buttonkan iyo buttonkan maadaama ay tahay marka ugu horeysay waxaan taaban doonaa halkan ay ku qoran tahay create new site marka halkaas wuxuu siinayaa shaashad oo laba mid doora ah midda koowaad waxay leedahay create new site midda labaadna waxay leedahay create from blueprint labadan laba macno gooni ay kala xambaarsan yihiin create new site markay tahay waa mid nadiif ah hadda min bidaaya adiga ka soo bilaabaysid markay tahay create blueprint markuu yahayna waa website hore u dhistay themekii balaagneskii waxyaabihii kugu jiro oo dhan soo koobiyeysa waa fahmaysaa waa website cusub waaye laakiin wuxuu wataa website hore loo dhisay oo xogtii ku jirto uu wataa taas waaye hadda si fudud u raano laakiin hadda maadaama website hore aanan haysan kan noogu horeeyo waxaan markaa dooranaynaa create a new site kadib waxaan dhihi doonaa continue wuxuuna weydiinayaa magaca websitekeena u baxsanayno wax isku ogeyn magaca la bixi doono inuu noqonayo ila baro dabcan waa magac iska sambal ah adu koorsadaada ama websitekaaga waxaa la bixi kartaa aniga magacana ula baxay qaybtan hoose wuxuu ku leeyahay advanced laakiin wax muhiim ma ahan maxaa la yiraahdaa site URL-ka waxa ka dhigi lahayd iyo meesha markaa la dhigi doono waaye si defaultigeeda ku dayso iyo wuxuu isaga ku dooro marka kadib waxaan dhihi doonaa continue marka continue run kadib badana mar labaad wuxuu siinaa environment-ga laba qaab marka kee rabtaa mid waa preferred oo localka isaga ku abuuri doona midna waa custom oo markaa aad awoodid customka hadda isla fiirino PHP versionka isticmaali doono observe-ka aan saari doono iyo database-ka waa idan marka badankood waa qaar la digi doono maxaa la yiraahdaa waa arkaysaa yacni intuu asaga ku xulay u baa ku furan marka mar walba waxa fiican in asaga marka uu ku xulo wixii kugu haboon preferred dhigo continue marka inta soo gaartid wuxuu ku weydiinayaa inaad set up garayso WordPress-kaaga hadda waxaad joogtaa last step-kii waaye wuxuu ku leeyahay username iyo password samayso waa halka aad ka soo gali lahayd hadhow website-kaaga si aad koorsooyin posts iyo waxyaabaha markaa ugu soo dartid yacni admin username iyo password waa hadda si kale u niraano halkan marka aniga magacyo iska gooniya samaysan doona waan isku ogeyn demo aan markaa ka dhigan doona waan si karaa maadaama localkayga uu ku eg yahay halkan IO waa iga raacday halis waaye marka demo aan ka dhiganayaa wuxuu ku weydiinayaa email marka emailkan wuxuu faa'iido leeyahay lacala haddii aad website rasmi aad samaynaysid websitekaasna aad u samaynaysid username iyo password kamid uu kaalumo sidaa ku soo ceshan lahayd waaye emailka lagu soo diri lahaa recent linkiga waaye marka ani hadda midka oo shirkadda iska saari doona halkan si sambal ah waa fahmaysaa u malaynaya si sambal ahaan midka shirkadda idin saaray waka kadib waxaan dhihi doonaa add site talaabada ugu dambeysa joogaa wuxuu ii set up garayn doonaa WordPress dhammaystiran insha allah aan isla fiirino markaa kan wuxuu abuurayaa website-kii ayuu noo diyaarinayaa dabcan isbaarooyin uu dhigan doonaa oo yacni Windows security-ga computerkaaga ku degsan waaye wuxuu ku weydiin doonaa haddii aad u ogashahay in localka uu la falgalo computerkaaga ilaa 3 jeer uu kaa codsan doonaa insha allah waan u aqbalaynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo waayahay hadda si sax ah ayuu ii abuuray wuxuuna yiri waa arkaysaa waa lagu soo daray website-kaagi waa lagu rakibay hadda waxaa awoodaa website-kayga inaan si caadi ah u furo hadda haddii aan taabto halkan ay ku qoran tahay open site wuxuu isiin doonaa website iska bilow ah WordPress markaa taasoo noo cadaynaysa in la dhisay website-kii markaa u baahnayn hadda waxaan dhihi doonaa open site waa kan website-keenii uu ku dhisan yahay ama uu ku jiraa computerkeena marka wax badan baan ka bedeli doonaa haddii aan lahayd theme-ka
iyo waxyaabo kale oo dheeraad insha Allah waa inoo xiisada kale.